Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada warka Xamar Media Network. Madaxweynaha mudxiliidkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku eedeeyay maamulada Puntland iyo Jubaland inay xaygaldaacinaayaan inay doorasho ka dhacda dalkan Soomaaliya, isagoo sidoo kale sheegay in uu u tanaasulay muddo 5 bilood ah. Wuxuu kaloo sheegay madaxweynaha mudxiliidkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in haddii ay jiraan qaladaad la sixi doono intii ay doorashada socoto. Madaxweynaha ayaa la hadlayay dad taageerayaashiisa ah, wuxuuna si kulul u cambaareeyay maamulada Puntland iyo Jubaland isagoo ka hadlaya arrimahaasi. Madaxweynaha mudxiliidkiisu dhammaaday ayaa wuxuu yiri sida tan: waa la hadlay magacyada soo dira adduunkan ugu ceebeynna shacabka Soomaaliyeed san qalbi jabin idinka waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxayseen intaasoo jeer iyo tanaasul idin sameeyay waxaan ummadoo dhan baa arkaysay magacyada keena horeyna aan wadno wixii khalad ah ku jiraan annagoo soconno oo uu socdo doorashada socoto hala saxo waa la diiday waxay gaartay 5 bilood ku dhawaad waxay khasabtay in aan ugu yeero shir shirkaas intaan ugu yeerin ka hor markii aan anigu ku daalay yaa waxaan u diray ra'iisul wasaaraha oo Siciidani uu yiri ii soo dir ra'iisul wasaaraha